maanta waxaan u joognaa halkan xaflad ninka walaalka anaga musharax u taagan Dadaab Cabdikhayr Cabdullaahi Dibo magacayga oo saddexan aadan xasan Dawa musharax mudanaha dawladda hoose deertu waa mahadsan tahay waxaan u maleyn muddo badan dad baa xal ka soo hayay deegaankaas waliba ahil aan nahay nin walbana heer buu gaarsiiyey ani rabitaankay waxa weeye horta inaan heerkay gaarsiiyana wax ka bedelo bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la dhahaa diiriya mudane diiriya bare cabdi oo laga soo doortay degmada Damajale ward oo hadda 5 sano hadda soo hayay aad ayaan u rajaynayaa shacabkayga aad ayay ii jecel yihiin haddana waxaan rajaynayaa inay mar kale iigu celin doonaan بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعن دقيستيال كسو دوادا وركا لايف نيوز سومالي راديو استوديو هاو كلية هاي ودنكا كينيا أني قنوا محمود وزداعت قضبضا وركا وين وفدي مشرح حلوان يو MCA يا مانتا سو غاري أديغانكا داداب كواسيو أي هالكاسي سيديران لوغو سو دويي shacbiga ku dhaqan deegaanka Dadaab ayaa kaga hortagay meel fagaara ah kuwa oo isla markaana ululayay caleemo qoyan iyo sidoo kale sacab iyo durbaanooyin siiqooyin aad ayaa loogu soo dhaweeyay haweenka ayaa iyaguna waxay ahaayeen kuwa markaasina aad soo dhaweynta musharaxiintani ay si weyn uga qayb qaateen kuwaas oo ay ku soo dhaweeyeen alalaasyo musharaxiintan xilwaan ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka Dadaab kuwaasi oo ay kala yihiin musharax MP deegaankaasi Khayro iyo sidoo kale MCA-ga laga soo doortay deegaanka Liboya Abaqayley iyo halka MCA-ga laga soo doortay deegaanka Damajale haddaba sidoo kale dadka wafdigaasi ayaa si weyn magaalada socdaale kala duwan ku marayay kuwaasi oo ay bulshadana salaanyo kala duwan ay iyaguna ka gadoomayeen magaalada ayaa maanta waxay ahayd mid aad u sarakacsan xamaasad soo dhaweyn ay ka muuqatay kuwaasi bulshadana ay aad ugu riyaaqeen iyo wafdigaba intaas kadib wafdiyadana ayaa waxay dib ugu soo laabteen meel ay la doonayo in ay ku khudbad iyo waxyaabo kala duwan ballanqaadyo ay halkaasi laga fulinayay waa ballanqaadyo markaasina loo sameeyay bulshada waa hadii markaasina musharaxan MP deegaanka Dadaab Khayro haduu ku guuleysto inuu wax badan ka qaban doono deegaankaasi arimaha halkaasina lagu soo hadal qaaday musharaxa uu sheegayay ayaa ahaa in dadka qaxootiga ku dhaqan saddexda xere qaxootiyada ay isla markaana hadii uu eebo guushi uu siiyo wasidoo hadalka u dhigay isla markaana qaxootiga badankood ay noqon doonaan saddex meel oo qura halka ugu hore uu yahay in qaxootiga wadanka dibadiisa loo qaado ama in ay joogaan dalka ayna heli doonaan aqoonsiga dalkani Kenya sidoo kale wuxuu sheegay musharaxa qaxootiga kuwa markaasina doonayo in si iskooda dib ay ugu laabtaan wadankoodii isla markaana loo fududeyn doono dhalinyaradana wuxuu u ballan qaaday in ay heli doonaan shaqo abuur iyo sharciga dalka MCA-ga laga soo doortay deegaanka Damajale ayaa sidoo kale bulshada u sheegay in soo dhaweynta wafdiga uu isla markaana yahay mid si weyn loogu soo dhaweynayay musharax MP deegaankaasi Khayro laakiin MCA-ga deegaankaasi Abaqayle deegaanka Damajale ayaa sheegay in uu asaguna uu doonayo in uu mar kale
ee dib loo doorto deegaankaasi. bulshada deegaanka Damajaaley iyo inta ku geedaman ayuu ka codsaday in taageero buuxda uu ka helo. MCA waa musharax MCA ee deegaanka Dheertu ayaa isna dhankii wuxuu bulshada deegaankaasi oo ka codsaday in taageero ay u muujiyaan isla markaana isbedel badan uu ku sameyn doono deegaankaasi Dheertu. wuxuu sidoo kale sheegay in ballanqaadyada uu bulshada haatan uu doonayo inuu u fuliyo isla markaana in xilliga uu ku guuleysto doorashada ama guusha uu ku dabaasho in uu ka dhaweyn doono. intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayada ugu door karoon. haatan u diyaar garoowa warkaasi oo faahfaahsan. waa hagaag dhageystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan warkii oo faahfaahsan. musharaxiintani oo si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka Dadaab ayaa ah mid markaasina ay shacabka kaga codsanayeen in ay doorashada ama loolanka siyaasadeed ee guud ahaanba ka jira dalkani Kenya ay iyaguna dhankooda guul taariikhi ay ka gaaraan. musharaxiintan ayaa ah musharaxiin xildhibaan iyo sidoo kale mid markaasina MCA iyo MP oo ay doonayaan in bulshada ay codkoodii ama kuurahooda ay weydiistaan sifa ay markaasina guusha halka ay u kala tartamayaan ay ugu dabaalan lahaayeen. haddaba musharaxiintaasi ayaa waxaa hadaladooda uu yahay. الرحمن الرحيم magacaygu waxaa la dhahaa diiriya mudane diiriya bare cabdi oo laga soo doortay degmada Damajaaley ward oo hadda 5 sano hadda soo hayay 5 sano aan soo hayana waxaan wax ka soo qabtay xagga nabadgelyada. inta ugu horeyn intaan barnaamijka u guda galan mas'uul sare xagga deegaanka haatan aad mas'uulka ka tahay iyo waliba deegaanka maxkamad aan geynaynin dadkii meel ay ku dhibceen aad garanaynin ninka koowaad oo ka hadlay Libooye iyo Damajaaley ward anu ahaa. marka sidaa daradeed aad wixiina hadda wax baa ka qabsoomay waxna wali kama qabsoomin. waayahay hadda waxaa tahay musharax u loolamayo gambarka deegaanka Damajaaley qaasatan MCA bulshada inta badan sida indhaheegu ay qabanayaan waa kuwa taageero ay ku muujinayaan sida aad ugu guuleysan lahayd kursiga deegaankaasi MCA misleedahay 5 sano haatan soo socdo aad ku guuleysan doontaa. aad ayaan u rajaynayaa shacabkayga aad ayay ii jecel yihiin. haddana waxaan rajaynayaa inay mar kale iigu celin doonaan sababta dawladdii hore dawlad fiican maysan ahayn. dawladda xuquuqda dadweynaha siinaysa may ahayn. dawladda Gaarisa dhan laga ogyahay ahayd. marka anigana hadda waxaan rabaa in dadweynaha ay nafaaskii labaad ayna siiyaan si aan shaqadii naga dhinneed oo qabyada nagaad aan u dhamayno. xafladan waxaa iska lahaa musharaxa khayro cabdullaahi dhubow. aad ayaana lagu soo baxay aad ayaana lagu faraxsanaa loona reyreynayn ballanna looga qaaday in la soo dooran doono oo 2022 uu ku soo bixi doono. anigana aan u rajaynaynaa sidaas oo kalena anigana waxaan ka codsaday isla xafladaas inay igu soo celiyaan iyagana ay maaragtay ballanqaadyo ay iga qaadeen. marka insha Allah khayr ayaan rajaynaynaa inaan kalena ku soo celisano rajaynaa. magacayga oo saddexan waa aadan xasan dawa mudanaha dawladda hoose musharax mudanaha dawladda hoose Dheertu gabar aan arko lahayn oo maartay dirisame oo la yiraahdo Hindi Cali Mahad. maanta waxaan u joognaa halkan xaflad nin walaalka anaga musharax u taagan Dadaab Cabdikhayr Cabdullaahi Dhubow maqaayadiisa maanta shideen
laakiin nin walba maalinkiisu shidan ani meeshaan ka taganayo waa maamulka dheertu oo hoos imaana Garissa County waayahay dheertu bulsho badan ayaa ku nool malaha mararka qaar waxay isleeyihiin waa deegaan horraantii mudanayaal kale laga soo doortay inkastoo mudanayaasheena badan aynu ognahay bulshada inay ballanqaadyo u sameeyaan haddana taasi ay fulin waayaan ballanqaadyadaas oo kale bulshada loo fulin waayo ma leedahay waxyaabo badan waad ka bedeli kartaa ballanqaadyo kalena waad u samayn kartaa oo bulshada si weyn yacni si ay waxqabad iyo horumar ballaaran ay ugu tallaabsadaan deegaankaas walaal waa mahadsan tahay waxaan u malayn muddo badan dad baa xal ka soo hayay deegaankaas weliba ahil aan nahay nin walbana heer buu gaarsiiyey ani rabitaankay waxaa weeye horta inaan heerkay gaarsiiyeen wax ka bedelo hadduu ilaahay yidhaa intii karaankayga waxaan u malayn ballamaa la qaada aad u weyn qofka muhiim ma aha inuu ballan qaado haddana uu fulin waayo muhiimadda waxaa weeye bulshada waxay tabaysa eg hore inaad ogaato ayaga afkooda ay ku hadlaan cabashadooda aad ka qaado qoraal ahaan aad u qaadato hadduu ilaahay fursadda ku siiyo oo maamulkii aad ka mid noqoto maamulka waxa u sarreeya nin la dhaho gafana oo MCA gu hoos imaanaya talagalka marka wuxuu yahay hadduu fursadda ilaahay ku siiyo cabashadii ama sana rabitaankii dadweynaha ay ku dhiibeen inaad dowladda countiga qodob iyo qodob waxaad ka qaban karta aad ka qaban si berri markii waqtigii 5 sano ay dhamaato adiga bulshada aad xisaabtaana 20 qodob ama 10 qodob lagu dhiibay maxaa qabsamay isku wareys way loolan waad ku jirtaa malaha waxaan u malayn dadka culays bay dareemaan culayska markay dareemaanna waxay dhahaan culayska aad dareemaysaan yaa waxna laga qaban karaa bulshada maanta aan rabo inaan maqlo culays fara badan bay dareemaysaa maanta rabitaankooda waxay leeyihiin aniga oo aadan inaan wax kala qaban karay aaminsan yihiin anigana hadduu ilaahay fursadda ay siiyo inta karaankayga inaan wax la qabtaan rajaynayo baahidooda waxaa ka mid ah dhinaca iskuulaha caafimaadka biyaha intaasna waxaa ismaataa countiga ama maamulka Garissa hadduu ilaahay fursadda ku siiyo oo dawlad county oo shaqeynayso oo nidaamsan la helo waxaan aaminsanahay wixii sharciyan ama nidaam ahaan hoos imaanaya countiga inaan wax kala qaban karo bulshada waa tahay bal haddii aan kula kaftamo intii mudanayaasha aan arkayo kursiyaal qurux meelo kala duwan lisdhex mushaaxaye laakiin adigu dadka si gaar waxyaabaha aan kugu xusho waxa kamid ah aan kaga diyar duwan tahay in bulshadii oo dhaxdooda aad dhaxyar fadhiday Ilaahay lisma dhigi karo ninkan baa MCA u taagan hadii bulshadii baad ka mid noqotay maadaama aad la sheekaysanayso aad dhaxgaleys waxyaabaha u baahan yihiin waxyaabaha ka maqan aad kala yar ogaanayso oo kale bal soo lisma dhigi karo bulshada Ilaahay taas oo kale ayaa kugu dooran kara maadaama aad iyaga iska soo ceenin kuwa qaar kool la doortay walow telefoonada ay dansadaan bulshadana ay dhibaatooyin badan iyo walwalba ay dareemaan waxay isleeyihiin waad soo doorateen bay halkaas bay idin kaga ekeeday laakiin adigu waad dhax gashay wadarkiis waxaan malay markaa fadhinay ilaa 3 kursi baan ka kacay waxaan uga kacay dad ehele duqeeye oo aan arkay inay iga mudan yihiin iyaga fariistaan waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo bulshada inaan qayb ka ahay baan aaminsan haddii ilaahay fursad isiiyo iyo haddiga aan joogo oon mas'uuliyad hayin waxaan aaminsanahay bulshada inaan qayb ka mid ahay aan ka weyneyn inaan ayaga dhexdooda ahay oon ka baxsaneen rabitaankooda aan ku shaqo guud ahaan baa khiyaartaana dhegaysanaysaa intaa waxaa inooga idil warka deegaanka intaynu warkan warkii xigaynu ku kulma doono anigiyo dhammaan bahda Live News Somali Radio isku duwan oo idin leh sidaa nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh